السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعض وحن نقول عين يا أتشيبده يقبلك أقبشين فرتانك حفلدان هوتيلك الوضع فريو بعد ما هتسنتهين وحن نقول عين يا إلهي ما هذا إذا كجارته أنت كبعضي هذا الخير وحها فرتان وحنا نورن لها دبان كأورن دورا هدي الله إنه وقته واسوقات بالوجرة dadku daalan yahay maantana waa soomanayeen barina inay soomaan bay rabaan waa soo fududeynaya waxaan dhihi lahaa ka bacdi waan dhihi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa xafladda oo lagu daafurayo hoteelka Cadoon ilaahay noo garto isugu keenay ilaahaas ama hadle bacdallaahina waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan inta soo sharaftay dadkiina casubay waxaan u mahadcelinaynaa waxaan u malaynayaa xafladdu waa xaflad furitaan hoteelka kan hadal badan iyo xaajo badan ma leh waxa weeye hoteelkana waxaan leenahay dadka dhistay allah u barakeeyo muraadka ay leeyihiin oo khayrana allah ka siiyo innagana ajar allah ina ka siiyo ka soo qaybgalka iyo ajiibidda hoteelkan runtii de waa loo jeedaa waxa weeye hanti fara badan baa gashay waxaa la fahmayaa dadka hadda Soomaalidu badanaaba waxay yiraahdaan haddii lala kulmo meelayoga runtii aad baan u aragnaa waxay gelin badan inaan sameynana waa isku daynayo Soomaaliya waxba laguma aamini karo bay yiraahdaan waddanka laba maal gashan kara bay yiraahdaan dadka ku soo dhiiraday runtii hantidan geliyay aad bay u mahadsan yihiin waxa weyn bayna qabteen ciddii garanaysa waxa weeye waxa laga yaabaa hoteelkan hadda 2 sano inuu socday maalintii mandaraqa u horeeya lagu dhuftay ilaa ay maanta dad baa ka faa'iideysanaya maalintii ugu horeysay qofkii ku dhuftay shaqaalaha mandaraqa lacag buu ka qaatay wiilasha hadda cuntada inoo dhigayaana lacag bay qaateen intaas kharash ayaa ku socday waddanka kharash bay gelinayeen waa arrin maaragtay aan dadka in yar u fahmayso in faa'iidada maalgashiga ama faa'iidada hantidan oo kale marka la sameynayo ay tahay wax la wada leeyahay oo dadku ka wada faa'iideysanayaan oo qofka lacagtan soo shaqeeyay kaliya uusan lahayn dadka ma wada fahmayaan laakiin waxaan oran lahaa si loo fahmo waxaan oran lahaa lagu soo dhiirado waddanka la maalgashado iyaguna insha Allah ta'ala way ka macaashayaan way ka faa'iidayaan dadkana way faa'iideynayaan waxaan horta leenahay idinka Allah idin barakeeyo hantidiina iyo dhiiranaantiina iyo waddankiina inaad aaminteen oo intaad u soo shaqaysateen maal gashateen waana idinku hambalyeeynaa waxaan leenahay wax dad iyo dunyo waxa haystaan Allah idin barakeeyo wax fiican baad qabateen waxbaad noo qabateen baan leenahay walaalayaal horta hoteelkan waxa la yiraahdaa Cadoon Palace Hotel wuxuu ka kooban yahay hotel dabaq ah oo G+6 ah floor oo ah dhismo hotel ah iyo dabaqa 7 oo ah hall waxa kale oo helisa restaurant ama makhaayad 2 cafeteria 3 hall masaajid store ama dukaamada Soomaaliya laga yiraahdo iyo gym asaguna soo socda hotelka wuxuu ka kooban yahay 9 building iyo buildingkaas hotelka ah waqtiyaal badan soo mar runtii sida oo garaadku runtii sheegayna waxaanu ahayd runtii arin aad iyo aad qalbiga ugu weyneed runtii dadaal badan iyo hawl badan iyo wuxuu ahaa safar dheer hawlo badan iyo soo maray wadan runtii wanaagsan oo u dhalan oo aan jecelnahay aan ka dhisanay laakiin runtii in hotelka noocaan ama hawshaan kan shiraaca laga fuliyo iska hawshiisa wutay marka hotelkan waa hotelkaas waa hotel casri ah kuma dheeraanay in afaaniyo laakiin waxaan rajeynayaa dadka ama arkay ama degi doona ama service-ka in ayagu markaad furi doonaan hotelkan runtii markaan dhisay gareynay ama dhismihiisa ka fikiraynay hoteelada caalamiga ah runtii hoteelada adduunka anigu qurba joog baan ahaayo saylaatankii sano u dambeeyay ku noolaa wadamada reer galbeedka runtii
waa hotel ay u dhisaan garanay ama injineerka kule noo faahfaahin doona hoteelada casriga oo adduunka ka dhisan inuu la level yahay waxaan rajayn doonaa haddii ilahaydmo in aan servicekiisa iyo haddii la guuro yahay soo dhaweyntiisa iyo dhinac kasta oo stabilitygiisa ah aan sidaas oo levelka noocaasa oo haddii ilahaydmo sii ahaado hoteelka markaa bilaabmayna dad badan oo runtii ama friends nahay ama haddii la guuro qaar kamid ah business partner nahay waxay yidhahdeen intaanoo lacaga iyo intaanoo biyaa Soomaaliya gelinaysa intaanoo lacag haddaad ama America gashatid ama meelo kale aad gashatid oo ka population badan oo ka dhaqaale badan oo haddii la guuraya waa dhinac walba ayaga kaaga fiicnaan lahayd marka anigu waxaan ilmada Soomaalida waxay tiraahdaa runtii qof walbaba laba hore waa caws jiida annaga dal baan leenahay dad baan nahay inaad dalkayga iyo dadkayga aan ku soo noqono aad iyo aad ba annaga waxaan ugu tahay dadkii hoteelka aan dhistay farxad weyn ugu tahay farxad nooga weyn oo adduun ma jiro runtii inaan waddanka intaas u dhaqaale gelino waan sii wadaynaa insha Allah haddii ilaahay noo xarjeenaya in aan meelo badan oo caawa adoon baan dhisnay laakiin business badan ama hoteella ama business badan haddii ilaahay noo aan waddanka gudihiisa aan ka sii wadno haddii ilaahay noo oo ka sii investment aan sii wadno waxa yar baan rabaa saaxiibada qurbo joogta ah gaar ahaan ama dadka Soomaaliya meesha joogan waddankooda inay ku dhiiradaan anigu hadda waxaan joogay 29 sano waddanka maqnaa 7 bilood u dambeysay waxaan joogay Garowe iyo gobolka Puntland 25 sano u dambeeyay waxaan ku noolaa waddan galbeed oo waddanka America oo la dawladnimada iyo ammaanka iyo runtii la yiraahdo adduunka u horeeya ammaanka 7 bilood aan dareemay iyo nolosha aan dareemay runtii 25 sano u dambeeyay ma aan dareemin markii saaxiibada waxaan rabaa inaan u sheego halkaan weeye meesha hadday tahay dhaqaalo hadday magac tahay hadday sharaf tahay hadday ammaanka hadday si walba tahay hadday future dama tahay ilmahayaga iyo future-kayga dama tahay halkaan weeye future-kayga marka waxaan rajeynayaa hoteella waaweyn warshado waaweyn business waaweyn horumarro waaweyn horumarku waddan waxaa la anfaas gareystaa dhowr meelood loo kala saaraa waddankee waa waddan dihin runtii wax badan u baahan qofkii dhaqaale la yimaada oo ilaahay u barakeeyo wax badan oo soo wadamada kale waa wadamo la miirtay waa la miirtaa runtii waa qofku markuu anfaas gareysanayo runtii meel dhifa maahane waa meel rag waa hore ka shaqeysta oo anfaas gareysta oo meel walba laakiin waddankii waa waddan dihin marka waxaan rajeynayaa sanad walbaba business cusub oo haddii ilaa kuura caalami ah in Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan Puntland gaar ahaan caasimadda Puntland runtii oo ammaankeeda wax walba ay fiican yihiin ina u hadla maahano madaxdii dawladda iyo madaxdii gobolka joogtay laakiin waxaan rabaa inaan saaxiibada intaas u gudbiyo marka walaalayaal aad iyo aad baan mahadsantihiin aad baan ugu faraxsanahay maatankiina hoteelkan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybta dhismaha ah oo aad aragteen yacni wuxuu ka kooban yahay G+6 weeye oo kor ay tahay hall shirarka ah oo corporate meetings lagu samayn karo oo lagu talagalay waa 60 qol weeye oo isugu jira 3 category waxa weeye VIP deluxe iyo single mid walba uu ku leeyahay agabkiisii iyo qalabkiisu uu qalabeysan yahay furniture-kana loo soo dooray runtii oo laga soo dooray waddan ma garanaysaa Turkiga inuu ahaa baan u malaynayaa laga soo gaday markaad gashid gudihiisa yacni waxaad dareemaysaa tranquility dumanina yacni deganaansho runtii waxaas ka baxay ruux aad u wanaagsan oo qurux badan architectgiisana waa aragtaan banaanka markaa ka maraysaan wuxuu ku yaal boulevard fiican oo go-an oo magaalada markii laga yimaado uu muuqanayo marka xaggana ay ka tahay parking weyn buu ku leeyahay xaggana parking weyn buu ku leeyahay oo additional oo yacni waxyaabaha uu ku yahay yacni uu haysto gudihiisa haddii aan waxyaabaha ka kooban yahay 60 qol waxaa ku jira telefoonkii iyo TV-gii IT-gii waxaad uga baahnayd waxaa ku jira dabcan biyihii iyo korontadii waxaa ku jira Allahu musta'aan CCTV-ga oo ah koridoradiisa indoor iyo outdoor labadaba waa ku jira oo security-ga si banaanka dhan iyo gudahaba loo ogaado sulamka laga dagayo stairska waxaa ku yaala maadaama uu dabaq dheer yahay waxaa ku yaala liftigi oo ah
mascadkii waxaan ka wadaa wiishkii dadku raaci lahaayeen ayaa isagana meesha ku yaalla waxyaabaha uu balaska yahay waa systemkii biyo macaynta isagana ku jira meesha systemkii biyo macaanaynta ayaa ku jira oo garowe xoogaa biyahooda way cuslaayeen in la geliyo marka systemkaa lagu daro oo wax iyaduna positive ah uu leeyahay oo plus ah oo hotelku leeyahay allahu mustacaan waxaan kaloo dhihi karnaa corporate meetingka sare oo qoladatan masalan haddii shirkad iyo cidi shir khaas ay yeelanayso 20 qof 25 qof 30 qof ay heli karaan iyagana majaalkooda iyagoo liftiga raacaya u fuduudba garanaysa qaxwadooda shaahooda waxooda helayaan design-ku saas u ahaa korna loo bixi karo haddii aan hoos soo degno waxaa ku yaalla dhankan hoose dhankaa shishe servicekii wixii khadamaadkii ahaay oo dhan waxaa ka mid ah kushiinkii oo sabashiosa runtii la qalabeeyey qalab fiican bay soo dhigeen muxuu ahaa dadka hotelka le cabdisaaq iyo runtii waxay iyaguna way ka jawaabeen yani designkii quruxda badnaa ay heleen qalabka ay soo dhigeen qalabeyntiisa way ka jawaabeen yani wax isla jaan qaadi kara oo isku mid noqon kara maajinku israacsan yahay allahu mustacaan waxaa jira qaybtaas waxaa ku jidha allahu mustacaan waxaa ku jidha supermarket oo sii jeeda oo dhanka usii jeeda waqooyiga waddada weyn oo meenkaa usii jeeda waxaa ku yaalla isagana cafeteria oo iyaduna xagga usii jeeda gudaha waxaa ku jira mundayaal kuwa xiran oo AC-gooda leh oo gudaha aa geli kadhib oo qofku fadhiisan karo dad ay ballansan iyo wixii ciddii ma garanaysaa ama shir khaasa ku qabsan karaan iyo kuwa hawada u furan intaba way leeyihiin dalladihii bay soo dhigeen oo kusoo dareen oo balasa oo kor iyo hoose oo geesaha ah dhankaan markaan usoo wareegno wuxuu positive ku yahay jihada kale boulevardka wuxuu ku leeyahay baarkin aad u fiican 2 baarkin oo labada dhinac waxyaabaha uu ku yahay way cajiibka waxaa kale oo ku jira 3 hool oo shirarka ah oo 2 hoos tahay midna kan aynu ku jirna hadda uu yahay waa 3 hool oo shirarka iyo ka corporate-ka marka waa mashruuc mutakaamil ah oo yani casri ah oo la jaan qaadi kara waan isleeyahay 40 sano soo socda iftiisu leeyahay foundationka iyo structure-kana waa ugu talagalay in la saari karo kuwa kale marka iyaduna haddii ay petrol iyo nimco ilaahay la siiyo siyaada ah oo ay arkaan in ay sii soconayso inay saarsan karaan oo liftigina uu xiran yahay structure-kiina uu sii socon karo baa iyadana lagu talagalay marka guud ahaan waa arrintaas buu ka kooban yahay waxaan leeyahay mar labaad hanii'an ragga maal gashaday ama muxuu ahaa familiga maal gashaday intay lacagtoodii kasoo wareejiyeen dhul ajnabi halkan keensaday waxaan leeyahay hanii'an allah idii barakeeyo hanii'an waxaan misna leeyahay dadka customerka oo noqon doona caduud customerkooda iyagana kusoo dhawaada serviceka iyo khidmadaadka aad baan u mahadsantihiin shirkadduna waxay noo tahay inaanu fulino mashruucan oo kaleeto salaantaa ka bacdi waxaan u mahad celinayaa runtii walaalkeen cabdirasaaq cali cigaal oo runtii hirgeliyey hotel micno leh magaalada iyo deegaanka labada wax ugu yaalla sidii garaadku uu markii hore sheegay in projectigan oo kale la fuliyo runtii wuxuu u yahay dalka nolol ilaa maalintii siduu garaadkuba sheegay badeelkii horreeya la dhigay ilaa maanta in qofna kharash bixinayo qolana ay ka faa'iidayso waa u mahad celinayaa cabdirasaaq iyo walaalihii kale oo projectigan hirgeliyey runtii micnaha leh waxayna sharaf u tahay deegaankeenna Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland iyo magaaladeena Garowe in dadkii dalka u dhashay ay dib ugu soo noqonayaan nabadda iyo xasiloonida baa sabab ah waan leeyahay anigu waxaan ka mid ahaa raggii mar hore soo laabtay sida cabdirasaaq oo kale oo waddanka ku soo noqday hadda 5 sano u dambeysana waa joogay runtii waxaan leeyahay waxaynu u baahannahay in dawladdii hadda way fadhidaa lagu dhiirigeliyo dadka investorska maalgeliyaasha inay ku soo noqdaan dalka oo la dhiirigeliyo waxaan aad ugu mahadnaqayaa ganacsatada iyaga oo haystay waddan weyn oo ay ka shaqaystaan intay ganacsigoodii soo usoo wareejiyey waddankooda waxaan leeyahay ilaahay hayda ka abaal siiyo cabdirasaaq mulkiilaha allah u barakeeyo ilaahayna wixii waddankan geliyay wax ka badana ka siiyo intaa kadib annagu sida deg baan nahay wax allaale wixii nagu soo biira abaal gaaraanu ka haynaa oo ganacsiya magaalada tani waa caasimaddii Puntland waxaa ka dhaca shirar waaweyn iyo kulamo waaweyn ha noqdeen kulamo siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale iyo kuwa bulshaba
waxay u baahan yihiin marka in servicekaas ay heli karto. shirar badan oo waddanka dibaddiisa lagu qaban jiray ayaa hadda waddanka gudihiisa loo soo waaciyey. waxaa ugu dambeeyey kii heritage oo awal Jabuuti lagu qaban jiray oo Garowe ay marti gelisay oo ay ku filnaatay dhammaan dadkii martida ahaa meel ay ku shiraan iyo meel ay seexdaan iyo adeeg loo qabtaba. hotelkaana wuxuu ka mid noqon doonaa shirar kuwa ka waaweyn marka la qabto meelaha maaragtay servicekaas wax ka fidin doona. waxaan filayaa haddaan koronuhu uusan jirin mar horaa maaragtay hoteeladeennu ay heli lahaayeen waxa ay gasheen, laakiin koronihii baa xoogaa caqabad noqdayo. isagana insha allahu tacaala markii talaalka dadku qaato oo ilaahay wayna ka saaraya haddii rabbi idmo. hotelkan waxa ugu badan oo laga helaya waxaa ka mid a shaqo abuurka oo dad badan baa shaqo ka helaya oo noloshooda ka dabaranaya. dawladduna waxay ka helaysaa dakhli, mulkiilayaashuna waxay ka helayaan faa'iido. marka isaga iyo wixii la midka ahba waa wax maaragtay aada loo soo dhaweeyo. hotelkan qiimaha iyo qaayaha badan Garowe Bila la yiraahdaa, Garowe Bila bilic qurux badan kusoo saacidiyey, dhaqaale iyo investment keenay, shaqo abuur sameeyey, isku dayasho iyo ficiltam sameeyey. waxaan leeyahay Cabdirasaaq isagu waa ceeb asture. halka waxaa iga muuqda golaha wasiirada u badan reer Minnesota iyo mulki iyo marka haddiina la yidhaahdo war maxaad kusoo saacidiseen Puntland, waxaan u maleynayaa hotel cadduun baan oran doonaa. marka hotelka kani xaqiiqatan Cabdisaaqana waa isnaqaanaa. Cabdisaaq waa ii sheekeeyo waxaan ka wada nimid Maraykanka gobol Minnesota la yidhaahdo. wuxuu ku jiraa xaqiiqatan dadka Soomaalida dadka ugu dhaqaalaha roon. isku ganacsiyaan ka shaqayn jirnay similar ganacsi, laakiin isaga kuwiisa alla waa barakeeya, alla saacidiyo. Cabdisaaq nin kale aan isla garanayno isaguna reer Minnesota haddana gobolada ka yimid baa la sheekaystay. wuxuu yidhi warniyahow $3 milyan inaad Garowe geliso waa impossible. $3 milyan South Africa iyo Kenya iyo caalamka kale Minnesota iyo adduunka aad gelin kartaa hotel $3 milyan ku kacaya, dhulka oo $500,000 ku kacay. qofkii qiimeeyay damaaqan macnaheedu iyo wuxuu ka lahaa gudoomiyada degmada joogo, waxaan u maleynayaa dhulka qiimeyn baa loogu noqonayaa, lacagta qayb baa la soo celin doonaa. hotelka kani dhaqaalo badan oo wuxuu ku kacay xaqiiqatan sidoo Cabdisaaq ku shaqeeyey anigu aan ogahay xaqiiqdeeda. meesha tani Cabdisaaq wuxuu yidhi waxaan ka helnay amni iyo qorax iyo dadkaygu aan la joognay caafimaad. waxaan garanayaa meeshuu ka imaanayo ilaa 5-4 bilood oo Minnesota uu joogo qabow oo baraf la xaaqayo la ordayo ka soo shaqeeyay. marka noloshaan in la haysto oo hotelkan la soo saacidiyey iyo wax la mid ah, waxaan rajaynayaa in Cabdirasaaq the celebration gaar isaga loo samayn doono oo lagu oran doono dhiirigelinta dadka reer Puntland ama Soomaaliyeed aad dhiirigelisay. waa kaaga mahadcelinaa gudoomiyaha degmada uga fadhinata hadduu lahayn mar labaad iyo mar saddexaad. waxaan leeyahay hotelkan qiimaha badan waa ku faraxsanahay. marka waxaan rajaynaynaa horta tusaale nool inay tahay arrintan, inuu qof u soo bareeray 25 sano isagoo ka maqan. qoraxda uu sheegay iyo nabaddana waan la aragnay oo waxa way waddanka hadda waxaan ugu soo laalaabanaynaa intaba waan ku haynaa. ilaahay ha u siyaadiyo. waxaan rajaynaynaa inay dad kale oo reer Puntland meel kasta ay joogaan, kolley hadda Minnesota waxaan u maleynayaa inaan iska dhaqnay inaynu halkaan xilal un laga haye aynu noqonay maalgashatayaashan aan ka mid noqon. aad baan ugu faraxsanahay. Cabdisaaq oo uga mahadnaqayaa inuu kusoo dhiirtay. reer Minnesota way ka buuxaan weliba dad kale oo badan, rag iyo dumarba, oo mar walbaba ka fekeraya siday ugu soo noqon lahayn waddanka. inay kusoo dhiiran doonaan baan u maleynayaa. maalinba qof uu maalin imaan doono. siiba waxaan rajaynaynaa in ay dadku ay fiirshaan caafimaadka, siduu meeyarkaba ka dhawaajiyey caafimaadka in la eego. maaragtay iyo dadka soo laabanayaba sidii loo heli lahaa servisyada ay raadinayaan, si ay dadka loogu tababaro. dadku waxay doonayaan markii ay soo laabtaan serviceka ay doonayaan in la helo. marka insha Allah kolley anagu waxaan nahay dadkii u dhaxeeyey dadka gudaha ku jira baahidooda iyo dadka imaanaya si ay u ogaadaan
meelaha u bannaan ee ka maalgashan karaan waan ugu mahadnaqayaa cabdirasaaq mar kale inay horta ceebtayada uu asturay in haddaana heer Minnesota uu maaragtay uu noqday qofkii ugu horeeyay oo maalgashi sidaan u ballaaran u weyn meesha quruxda badan madashaan iyo hoteelkaanba Allah asagana ha u barakeeyo runtii farxad bay noo tahay inaan caawa 28 bishii afraad 2021 aan halkan kaga soo qayb galno xafladda daahfurka hoteelka Caddoon Plaza oo ay maalgeliyeen dad qurba joog ah oo ay ugu horeeyaan ilma Cali Cigaal khaasatan saaxiibkay walaalkay Cabdirasaaq Cali Cigaal oo aan muddadii uu sheegay meelna wada joognay wada shaqayn jirnay iyo walaalihiisba iyo in badan oo caawa halka kan fadhida runtii waxaan marxaanti ka nahay dhammaanteenba in Cabdirasaaq iyo ganacsatada kale ee hawshatan la hirgeliyey ay muujiyeen karti dheeraad ah sida halkan laga sheegayna ay astureen haddii ay jirtay dhaliil qurba joogta khaasatan meesha anagu aan ka nimi Cabdirasaaq iyo walaalihii iyo inta kale ee businesskan iyo ganacsigan barakaysan la hirgelisay waxaan leenahay waa mahadsantihiin ilaahay ha inoo barakeeyo dhammaanteenba maskaxda iyo dhaqaalaha iyo kartida aynu gelinay halkan fariinta ku socota marka qurba joogta ee dhammaanteen aynu halkan ka gudbinaynaa caawa waxay tahay waa ku dayasho wanaagsan waa tilmaan iyo tusaale wanaagsan waa wax lagu qaato intii aan dalkan joognay aan qurbaha ka soo noqonnay waxaan dareennay runtii waxaan dareennay ammaan waxaan dareennay nabadgelyo waxaan dareennay wax wanaagsan weliba meeshaanu ka nimi waan is ogtihiin reer Minnesota iyo North America dadka ku noolow subax kasta iyo habeen kasta waxaynu isweydiin jirnay waxay ahayd how is the weather tonight how is the weather today there's no hadda ma jirto marka haddaad Soomaaliya timaadid oo Puntland timaadid cid hawo ku weydiinaysa iyo cid weather ku weydiinaysa iyo cid climate-ka iyo maxaan ku yiraahdaa siday tahay ku weydiinaysa dalka kaalaya dalka dhisa aqoonta nala dhisa caafimaadka nala dhisa infrastructure-ka iyo qaabka iyo dalka kaalaya nala hagaajiya soo bareera oo kaalaya sida Cabdirasaaq iyo walaalihiis iyo kuwa kale oo farbadan ay soo bareereen qurba joogta weliba reer Minnesota saaxiibada aan nahay kumaakunka iyo boqolaalka gaarayo si fiican baynu isu garanaynaa kaalaya dad farabadan oo aan aad u aqaan oo Cabdirasaaq ka hanti badan baa jooga weli meeshii kaalaya oo hoteelo badan iyo ganacsiyo badan iyo waxyaabaha faraha badan iyo oo weliba ka faa'iideysta shirkii halkan lagu qabtay ee Puntland Investment oo caalamka markii ugu horeysay halkan Garowe lagu qabtay midhihiisa baan joognaa caawa mid kamida weeye tani kuwa kale oo fara badan inaan hirgelinana waa laga maarmaan waxaan rajaynaynaa annaga ka xukuumad ahaan waxaan aad u soo dhawaynaynaa oo boqolkiiba boqol aan soo dhawaynaynaa cid kasta oo waddankan iyo dalka kan ku soo kordhisa ganacsi maskax caafimaad qabta rabitaan iyo doonitaan dalka kan iyo ummadda tani waxay ku horumari lahayd soo keenaba bad aad baan u soo dhawaynaynaa midda kale hadda airport caalami aynu haysanaa qurba joogteennii diyaarad caalami aynu keennay dowladda tan maalintii waxaa laga yaabaa 60 qof oo aan horey dalkan u imaan jirin hadduu wiig fasax helo inuu yimaado hotel fiican uu ku dego waxaa laga yaabaa qofkaas inuu $5,000 wato rabo wiigaa uu joogo 20 maalmood haddii maalintii 60 qof yimaadaan ama flightska kale Nairobi ka yimaado meelaha kale 40 kale la socdaan 100 qof oo mishan kun wataa waa imisa ku dhufo ما يوقفون كوي سمع وشن بقولكم هذه شن بقولكم ما أنت جروا ضدك إيمانا السفر كايسوق ليان هذا كمان هذا يضدك رسينس كها ما حي بهايين وحي بهايين لو تري عدورة كلام يمرسورة كلام يا مركورت مجالو وحياة صوت شيء كميت أو يقف كم مجالو مركو يهدو كهلا أسبتالة فيعان هوتيل فيعان وطفيعان ما فيعان كله جاينا يا أمان شرو هذا ما عاصمة دينا الدبرة إلى فيشن كحمر يلا تفتنتو haddaynan garowe bolosiga dhulka wax ka bedelin oo dhulka qaaliga ayna wax ka bedelin hadda ogaada marka qof uu rabo inuu hotelka kala dhiso marka uu dhulku gadanayo 1 milyan yahay wuxuu ka dhisayaa meel
ay ka sahlan tahay inuu yimaado. Marka waxaa laga maarmaan ah rabaa inaan fursaddan aan uga faa'iidaysto. Magaaladani waa magaalo aynu u diyaarinayno mustaqbalka inay Xamar iyo Hargeysa la tartanto oo aynan dadkeenu hayaanka hore uusan ku dhicin. marka insha Allah taala waa u ducaynaynaa runtii waa labeenta maartay waxaan oo kale aad u maalgelisay hudheeladana aad bay muhiim tahay in cuntada macaan iyo serviceka macaan iyo waxa lagu hayo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. adduun balaasa waynu u jeednaa waxaynu markhaanti ka nahay inuu yahay hotel standard ah oo la jaan qaadi kara hoteelada adduunka. saaxiibadaydii horaa runtii ka hadlay laba arrimood oo aada muhiim u ah oo dardaaran ah. mulkiilayaasha waxaan kula dardaarmaya Cabdirasaaq iyo inta managementigaasi waxaan kula dardaarmayaa standardka in la ilaaliyo, in standardka in lagu ilaaliyo inuu wax ku saa'idaan maaha inuusan hoos u dhicin. waa arrin aada iyo aada u muhiima. soomaalidu dhaqan ahaan waxaynu leenahay waxaynu dhisnaa guri ama warshad ama wax kastaba ahaatee, laakiin maintenance-ka kuma fiicnin, wax laguma celiyo. waxaa loo baahan yahay dhaqaalaha ka soo baxa businesska nooc kasta ha ahaadee in percentage meel loo dhigo kaasoo lagu ilaalinayo maintenance-kiisa in lagaga shaqeeyo. runtii haddii aan laga warqabin oo maintenance-kiisa laga shaqeyn waxay noqonaysaa in uu hoos u dhacay noqonaysaa. runtii hadal badani meesha kama furna. waxaan leenahay Cabdirasaaq iyo walaalaha kaleeto iyo ehelka kale iyo business partnerkiisa kaleeto ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu noqdo businesskaanu kii bulaala lagu barwaaqoobo inuu noqdaan ka rajaynaynaa. fariin aan la wadaagayo saaxiibadayda qurba joogta ah. nin saaxiibka ay sheegay waa run, magaaladii aanu ka nimi oo Minneapolis waxaa jooga number badan, rag aad iyo gabdho iyo rag iyo dumarba waxaa jooga aad iyo aad dad u badan dhaqaale xoog lena haya. laakiin waxaan ku dhiirigelinaynaa, waxaan leenahay cabsida iska saara oo lacagta intaa leeg meesha ma ka soo baxaysaa, ma helaysaa, ma ku khasaaraysaa, iska saara. kusoo dhiirada waddanka sektarro badan baa jira oo hadda bannaan. caafimaadku ka mid yahay, waxbarashadu ka mid tahay, warshaduhu ka mid yihiin. waxaan codsanaynaa qurba joogta meel kasta ha joogeen, ama North America ha joogeen, ama Europe ha joogeen, ama Africa ha joogeen, inay waddanka kusoo noqdaan, inay waddanka maal gashadaan. Cabdirasaaq iyo inta walaalihiisa qaraabadiisa oo maalgashigan ku dhiiratay inay sameeyaan, waxaan usoo jeedinayaa mahad. waxaan usoo jeedinayaa ammaan. waxaan ugu ducaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala. waxaan uga baryayaa in mashruucani noqdo mid guulaysta. may maqlaysaan? waxaan ilaahay ka baryayaa inuu noqdo mid lagu guulaysto, mid faa'iido degdega laga helo, mid dantii laga lahaa iyo ka badan mid u soo jeeda Garowe baan ilaahay uga baryaya. waxaan jeclaan lahaa inaad niyadda aamiin ka wada tirahdaan. ilaahay inuu guuleeyo, ilaahay inuu ka dhigo mid miro dhala baan ilaahay uga baryay. tan aan ugu dambaysiinaya waxa weeye dawladda, xukuumadda, wasiiradii waa joogaan, in badan baa ka joogta,
wasiirka arrimaha gudaha aan ujeeda halkaa waxaa iga muuqda wasiirkii haduusan ka kicin halkaas wasiirkii howlaha guud iyo guriyeynta ma baxay waxbaa igaga beegan baan umalanaya ya halka kan laba wasiir baa is dhinac fadhiya xaggaa laba wasiir oo kalea is dhinac fadhiya laguma dhamma wasiiradii markaan kitaabkooda fiirino laakiin waa lagu badan yahay laguma yaraa waa mahadsantihi waxaan kaleetoo codsanayaa xukuumaddu in ay siiso mashruuc kasta oo cusub oo la bilaabayo si uu ku guulaysto xukuumadda waxaa laga rabaa wax badan oo ku xirmaaya oo ganacsigu u baahan yahay xukuumaddu inay fududayso baa laga rabaa xukuumadda waxaan ka codsanayaa inay arrintaas ka howlgalaan dhiirigeliyaan fududeeyaan waxyaabaha hoteelku u baahan yahay oo bilowga ama cashuur ha ahaato waxaa la soo dejinayo ama kharajaadkiisa markii waxa laga cashuurayo dakliga soo gelaya ha ahaato inay fududayso baan ka codsanaya xukuumadda islaan kadib aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sidii akhyaartii iga horreysaba ay sheegeen inaan caawa ka soo qayb galno munaasabaddan lagu daahfurayo ama xarigga looga jarayo hoteelkan cusub iyo adeegyada kala duwan ee wato run ahaantii aad baa looga hadlay caaway muhiimadda ay leedahay maalgashiga dalka la maalgashanayo muhiimadda ay leedahay dadka Soomaaliyeed ama gudaha ha joogeen ama dibadda ha joogeen ee dalkooda gelinaya hantida muhiimadda ay u leedahay horumarka muhiimadda ay u leedahay nabadda muhiimadda ay u leedahay kobaca bulshada intaba aad ayaa caawa looga hadlay waana bogaadinaynaa waxaan si gaar u bogaadinaynaa cabdirasaaq iyo saaxiibadiisa la maalgashaday mashruucan ballaaran oo sida halkan laga dhawaajiyay dhaqaalaha tirada badani galay muddada koobanna ku dhismay bilicda iyo quruxda ka muuqatana halkan lagu soo bandhigay sidii isimadii iyo mas-uuliyiinta kala duwanaaga iga horreeyaba ay sheegeen waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo waxaan leenahay ilaahay dhaqaalaha meeshaas la geliyey ha bulaaliyo oo ha badiyo waxaan rajaynaynaa insha allah inuu noqdo mid lagu daydo oo dad badanna ay ku daydaan intaa haddaan idhaahdo sida wasiiradii iga horreeyey ba ay yidhaahdeen wasiirka duulista hawada iyo wasiirka ganacsigu khaasatan dowladda puntland waxay horay sanadkii 2019 u qabatay shir maalgashi oo aad u ballaaran oo Soomaali iyo ajaanib la isugu yimid qabashada shirkaas ka hor waxaa jiray diyaar garow ballaaran oo loo sameeyey in Puntland loo diyaariyo inay noqoto meel maalgashi inay noqoto deegaan la maalgashan karo oo dadka Soomaaliyeedna ay maalgashan karaan ajaanibtuna maalgashan karo taasoo micnaheedu tahay in shuruucdii iyo qawaaniintii hagi lahaa arrintaa maalgashiga la diyaariyey in maalgashiga la fududeeyey shuruudaha ku xeeran waxaad ogtihiin dalka Soomaaliya ka sokow hadda hanaankan dowlad dhiska weli ku jira oo Puntland ay ugu horreysay oo federaalka ah waagii hore wuxuu ahaa dowlad dhexe oo hal meel wax laga maamulo xeerarkooda dhanna hal meel laga jaangooyo sidii wasiir Ilyaaska uu sheegayay taas waxaa meesha ka maqnaa xorriyadda dadku ay u haysteen waxa ay rabaan inay maalgeliyaan iyo in loo fududeeyo marka ilaahay baa waxa mahadiisa ka sokow inaynu hanaankaas oo hay-ad ahaan wasaaradda ganacsiga iyo ay hagayeen haddana in shirkaas markii la qabtay ama diyaar garowgiisa ha noqoto ama kadib ha noqoto casharadii laga bartayba in Puntland ay diyaar u tahay in la maalgasho marka waxaan ugu yeeraynaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo ajaanibtuba
inay puntland tahay meel diyaar u ah in la maalgashado haddii lahayn puntland inay diyaar u tahay inay ilaaliso dadka maalgashanaya dhaqaalahooda hadday tahay amniga puntland inay diyaar u tahay in dhulka oo waxyaalaha runtii waagii hore ay ka taagnaayeen caqabaduhu la fududeeyo waxaa la diyaariyey xeerkii dhulka oo wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidku ay diyaarisay oo hay-adihii meel marinaya o dhan hadday tahay golaha wasiirada iyo hadday tahay baarlamaankuba ay meel mariyeen waxaa la diyaariyey shuruucdii kale ee maalgashiga kuwii kambaniyada ama company actiga wa lowga waxa la yidhaahdo dhammaantood waa inoo diyaar xafladdan ikhyaarta ka soo qayb gashay oo faniyada kala duwan leh rag iyo dumar allaha idin barakeeyo khayr allaha idin siiyo waktiga aada siiseen hoteelkan iyo daahfurkiisa waxaa mudan tihiin duco iyo soo dhaweyn iyo hambaliyo taas waa iga intaa cabdirasaaq iyo dadka ku lifaaqan oo halkaan maal gashaday waxaa ku filan annaga qurbaha dadka ka yimaada waxaa noo imaan jira dad wax naga doonaya dad wax nagu soo biiriya nooma imaan jira waa runtii nin madax soo doontay iyo gabar madax soo doonato markay waxawaayaana iska nooda marka kow weeye qurbaha cid ka timid oo abuurta mashruucan oo kale ammaan iyo marka duco iyo hambalyo naga guddooma khayr allaha idin siiyo iyo barako allaha idin barakeeyo hoteelkan iyo hoteelada lamida yaa ay wax tarayaan dadka iska leh iyo degaanka ay ka dhisan yihiin oo reer puntland yaa u nacfiroon yaa u magacaroon dadka reer puntland oo degaankan degan baa u magacaroon oo u nacfiroon martida haddaan degsano waxaa la ohanaya war hoteelkaan hoteeladan oo kale annaga nooma dhisna dad badan baa nagu dayanaya o noo masayraya meel aan degsanoba martidaba haddaan weyno soo doqonnimo maaha hoteeladan puntland ku aragnay oo kale dadku hadday yidhaahaan soo sharaf iyo karaamo nooma aha taasna waxa weeye waa waxaad u tarteen dadka iyo dalka idinkana khayr allaha idinka siiyo waxaana rabnaa in dad badan idinku daydaan baan rajaynaya ma rabo intaan sheegay inaan dhaafo sii dhaafo waxaan u ducaynayaa dadkaan anaa u weyn wax ila e kuma arka meesha boqor cabdullaahi ma joogaa horta maxaa caawa loo siin waaya hadal o wax ila eg ama igu dhawaada meesha ma fadhiyaan ilaahayna inuu aqbalaan rajaynaya saasaan u codsaday inaan hadalka ugu dambeeyo oo ku duceeyo tawfiiqda allahana waafajo tawfiiqda allahana waafajo tawfiiqda allahana waafajo dembigeena iyo kii waalidkan allaha noo dhaafo xaqa allaha nagu hanuuniyo muslimiinta allah u gargaaro dawladda soomaaliya ilaahay waxaan ka baryaynaa madaxdeeda iyo majaheedaba ilaahay inuu isku dabirido tawfiiqda waafajiyo saasaan ilaah ka baryaynaa ilaah waxaan kaa baryaynaa dawlad fiican oo islaam ah oo ummadda xaqa ku wada rabbigo baan kaa baryaynaa ilaahuna aqbalona ajiib madaxweynaha caawi waxaan rabnay halkaan inuu nagala soo qaybgeli doono laakiin waa u cudadaaraynaa arrimo waxaa uu u mashquulay ee kale oo ka culays badan halkan isagana waxaan leenahay arrintuu ku jiro allaha u fududeeyo annagoo dhan xaq allaha nagu hanuuniyo allahuma salli calaa maxamed faatixa